Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhowow daawade. Ugu horreyn iga guddooma salaan aad u qiimo badan. Salaan kadib, magacaygu waa Maxamed Faarax Dirir. Channelkaad igala socotaana waa Dirir Yare Media. Soo dhowow mar kale. Magacaygu waa Maxamed Faarax Dirir. Waxaan ahay wiil naafa ah oo ka mid ah dhalinyarada naafada Soomaaliyeed. Gaar ahaan waxaan wataa wheelchair. Waxaan ku dhaawacmay magaalada Muqdisho. Haddana waxaan joogaa magaalada Toronto ee dalka Canada. Isbarasho intaa kadib, waxaan doonayaa inaan bilaabo barnaamijyo taxane ah oo aan kaga hadlayo arrimaha dadka naafada ah, maadaama aniga aan ka mid ahay. Barnaamijyadoodana aan si fiican uga warhayo. Sidaas daraaddeed waxaan doonayaa inaan idiin soo gudbiyo barnaamijyo wax ku ool ah oo tayo leh oo si dhab ah inta aad ka og tahay dadka naafada ah maahan qaybo badan oo iyaga u gaar ah oo dadka caafimaadka qaba ama lixaadkooda qaba aysan ogeyn inaan idiin soo gudbiyo. Ugu horreyn waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe dhahdo, kambalelka aad furato, like-tan aad ii saarto. Please waan kaa codsanayaa, igu caawi adiga intaas. Anigana waxaan isku dayayaa ilaa xad intii karaankayga ah inaan kula wadaago barnaamijyo tayo leh oo wax aad ka faa'iidi doonto insha Allah. Waxay ka koobnaan doonaan dhowr qaybood oo qayb waliba ay ku dhex jiraan qaybo kale. Tusaale ahaan, barnaamijyada aan doonaya inaan bilaabo oo aniga iyo weliba dad kale oo naafo ah oo la xiriiray iyo qaar ila soo xiriiraba aan ka diyaariyey oo aan doonayo inaan idiin soo gudbiyo waxaa ka mid ah dhibaatooyinka cidlada ama wehel la'aantu ay u leedahay qofka naafada ah, sida ay u saameyso, sida looga hortagi karo, sida qofka naafada ah barnaamijyadaas uga gudbi karo, sida dadka caafimaadka qaba iyagana ee qofkooda uu naafada yahay la joogo ay uga caawin karaan arrimahaasi. Sidoo kale barnaamijyada waxaa kaloo ka mid ah aan soo gudbin doono haddii Allah awoodda leh idmo, arrimo ku saabsan caafimaadka, sida dhibaatada caafimaad ee sariirtu laga dhaxlo, maadaama dadka naafada ah badanaa ay yihiin dad oo sariirta u badan. Waxyaabaha sariirta dhibaatooyinka ay leedahay, siyaalaha haddii qofkan ilaah uu ku qabtay oo tantu ay bitana, waxyaalaha u sahlaya inaysan macnaha dhibaato aysan ka soo gaarin oo boog sariireed uusan ku samaysanin oo waxyaabahaas oo dhan. Sidoo kale waxaa ka mid ah arrimo badan oo ku saabsan dhinaca dhiirigelinta iyo hor socodka. Sidoo kale qaybaha waxbarashada. Weliba waxaa kaloo ka mid ah qayb aad u xiiso badan oo khaasatan aniga aad xiise iigu leh. Dhacdooyin badan oo aniga ugu saabsan iyo kuwo badan oo dad aan ka diyaariyana ay ku jiraan qaybtaas oo ah ma aan kaga hadlayo. Weliba qaybta ugu dambeysa ah aan kaga hadlayo arrimaha hasaawaha ama shukaansiga ama sida u taqaano xiriirka labada qof ee wiilka ama gabadha naafada iyo qofka kale, dadka kale ee caadiga ah. Waxyaabaha ay dadka ka aaminsan yihiin, sida ayagu ay isu arkaan, sida ay u sameeyaan, waxyaabaha uurkooda ku jira oo arrimahaas ku saabsan ayaan doonayaa inaan idiin soo gudbiyo haddii Allah awoodda leh idmo. Mar kale waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe dhahdo ood igu soo biirto. Waad mahadsan tahay. Dhibaatada cidladu ay u leedahay qofka naafada ah waa qaybta koowaad oo aan doonayo inaan idiin soo gudbiyo. Cidlada ama wehel la'aanta qof kasta wuu ka dhergsan yahay. Sidaa daraaddeed qaybta koowaad
waxaan ka dhigayaa cidlada ama wehel la'aanta waxay noqonayaan ilaa 5 qaybood ayaan jeclahay inaan ka dhigo oo aan qayb idinkugu soo gudbiyo. ugu horreyn aniga ayaa iska bilaabaya, kadibna dadka naafada ah intii xog aan ka hayo ayaan idinla soo wadaagayaa haddii alla idmo. waad mahadsantihiin mar kale, soo dhowaada, la soco qaybta koowaad ee dhibaatada cidladu ay u leedahay qofka naafada ah. mahadsanid.